السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعنا كسن داود يا مeel kasta oo dunida nagala socotaan oo maalmo jimcaha bisha Augustna waa 16 sanada 2024 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dowladda Itoobiya oo dholatus military oo aad u ballaaran ka sameysay magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle oo xigta markaasi dhanka xuduudka Soomaaliya. arrinkan oo loo arkayo markaasi dholatuskii ugu ballaarnaa kadib markii taliyaha ciidanka militariga dalka Itoobiya uu gaaray markaasi magaaladaasi Goday. waxa halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. hadda waxaan eegi doonaa qorshaha ballaaran ee dowladda Itoobiya ay wado iyo sidoo kale warar sheegaya in taliyaha ciidanka militariga dalka Itoobiya sidoo kale uu gaari doono Somaliland qaybo ka mid ah uu tagi doono oo markaasi halka uu kula shiri doono saraakiisha ciidamada Somaliland. xogii ugu dambeeyay dhaqaaqida militariga ee dowladda Itoobiya ay bilowday iyo sidoo kale saacadihii ugu dambeeyay guul weyn oo ay u muuqato markaasi dowladda Itoobiya inay ka gaadhay guud ahaan markaasi xulafadii Soomaalida iyo Masaarida. waxaana golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu kordhiyay markaasi muddadii ay joogayeen markaa ciidamada ATMIS. arrinkaas oo arrin markaasi aad la isugu hayay. Masar iyo Soomaaliya waxay doonayeen in la soo gabagabeeyo howlgalkan isla markaana uu bilowdo howlgal cusub si ay meesha uga saaraan guud ahaan ciidamada Itoobiya. arrinkaasi waxaa la tilmaamay markaasi inuu yahay mid meesha ka baxay oo ay guud ahaanba ciidamada ATMIS ay muddo korin markaasi loo sameeyay. waxaa dhinaca kale ay wararku tilmaamayaan in wax ka badan 30,000 oo ciidan ahaa oo Soomaaliya loo diyaariyay oo ay Itoobiya u diyaarisay waqtigii markaasi lagu ballansanaa in la sameeyo. waxa lagu magacaabay markaasi wadamada safka hore oo ciidan fara badan markaasi u ballan qaaday Soomaaliya. Itoobiya ay goor hore iska soo diyaarisay ayaa la tilmaamay inay ku sugan yihiin magaalada Goday isla markaana halkaasi ay joogaan ciidamadaasi muddooyinkii u dambeeyay. haddaba ciidamadan maxay qaban doonaan, xagee aadi doonaan, Itoobiya qorshaha wada muxuu yahay aniga doona iyo arrimahaas oo dhan iyo waliba xiisada gobolka oo laga sii cabsi qabay inay si laba jibaaranto maadaama marka la eego guud ahaanba heshiiska dhexmaray wadamada Soomaaliya iyo Masar uu si toos ah u saameynaya markaasi guud ahaan cilaaqaadka kala dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. oo Itoobiya waxay arkaysaa in halis weyn xilligan ay markaasi ku soo fool leedahay. waa arrimaha keenaya markaasi in dhaqaaqyo ay ka bilowdaan xuduudka labada wadan. iyo sidoo kale dowladda Itoobiya waxay markaas safiirkeedii u joogi jiray magaalada Muqdisho ee halkaasi ay dowladda Soomaaliya ka soo eriday ay u dirtay wadanka Algeria. waraqaha aqoonsiga ee laga gudbiyay markaas saacadihii ugu dambeeyay. tani waxay muujinaysaa in guud ahaanba aanay ka rajo qabin markaasi dowladda Itoobiya inuu soo hagaagi doono markaasi xiriirka Soomaaliya iyo markaasi Itoobiya. waxaa la ogyahay markaasi wadamadu marka ay danjirayaasha ay markaasi soo eriyaan oo ay dalkooda dib ugu soo laabtaan in muddo la siiyo ama waqti la siiyo si danjirahaasi dib loogu celiyo si markaasi uu danjiro kale xitaa haddii la bedelayo loogu kala wareejiyo oo xilka ay ula wareegaan. balse Itoobiya safiirkeedii markaa waa ay sii dirtay. taas waxay muujinaysaa in Itoobiya guud ahaanba xilligan aynan markaasi filaynin in xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya uu dib u soo laaban doono isla markaana wadahadalada markaasi loo balansan yahay ay yihiin kuwo aan wax badan laga filayn maadaama labada dhinac ay meel aad u kala fog markaasi taagan yihiin. arrimahaas ayaan eegi doonaa iyo sidoo kale safarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaad barnaamij ku maqli doontaan. saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay taliyaha ciidanka militariga ee dalka Itoobiya Birhanu Jula ayaa waxa uu gaaray magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle. halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay markaasi madaxweynaha dowladda Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. waxaana taliyaha ciidanka militariga dalka Itoobiya la sheegay markaa inuu halka u tagay qorshe ballaaran iyo waliba isku shaandhayn la sameynayo ciidamada militariga ee dalka Itoobiya. qaybo badan oo kamid ah ama saldhigga ugu weyn ee ku yaala markaasi dhanka koonfurta dalkaasi Itoobiya ayaa halkaasi ku yaala. waxaana markaasi la filayaa in uu isku shaandhaynta uu ku sameyn doono markaasi ciidamo fara badan oo xilligii markaasi wadamadii safka hore la isku warin jiray markaasi ku shiray magaalada Muqdisho ee kala ahaa Djibouti, Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya. oo xilligaasi lagu ballamay in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga caawiyo inay ka adkaato kooxaha argagixisada wadan kastana looga baahan yahay ciidan markaasi gooni ah oo ka madax banaan ciidanka markaasi ATMIS ku jira oo ay keenaan Soomaaliya isla markaana ay dowladda Soomaaliya markaasi iyadu ay ciidamada Soomaaliya la howlgeliso ciidankaasina ay noqdaan ciidan markaasi ciidamada Soomaaliya kamid ah oo ay si toos u wada howlgalayaan. dowladda Itoobiya isla markiiba tallaabo ay qaaday waxaana ay u diyaarisay markaasi ciidamo 20,000 gaadhay Soomaaliya oo loogu talagalay markaasi inay kala qayb qaataan guud ahaan markaasi ciidamadaas Soomaaliya loogu talagalay inay dagaalka la galaan kooxaha argagixisada. ciidamadii Soomaaliya gudaheeda ma aysan tegin oo waxaa ka soo hormaray markaasi guud ahaanba in dhaqaalihii iyo arrimahaasi ay dowladda Soomaaliya xilli hore diyaarin weyday iyo waliba in qaramada midoobay ay markaa dood ka keenan iyo qaar kamid ah markaasi midowga Afrika in dood laga keenay ciidamadaasi cusub ee aan ahayn markaasi ciidankii ATMIS ee halkaasi sii joogay.
waxaan arrinkaasi u keenay markaasi inay dib u dhacaan howlgaladoodii ay dib markaasi u dhacaan oo guud ahaan markaasi ciidamada ay hore u tegi waayaan Soomaaliya gudaheeda markii dambana wax la soo daba socdaba waxaaba ku dhacay markaasi khilaafkii labada dawladood ee Soomaaliya iyo markaasi Itoobiya iraaqidii markaasi Itoobiya ay bilowday haddaba ciidankan haatan waxay ku sugan yihiin magaalada Goday waxaan la filayaa markaasi in ciidan kale dheeraad ah xitaa lagu soo daro kadibna halkaasi loo diyaar garoobo sidii guud ahaanba xuduudka labada wadan ee Soomaaliya iyo Itoobiya markaasi loo xoojin lahaa maadaama haatan Soomaaliya ay la gashay heshiis difaac dalka Masar talabadan waxay muujinaysaa in Itoobiya ay leedahay markaasi diyaar ayaan ahay oo guud ahaanba waxa ay muujinaysaa inay cabsi weyn ka qabto markaasi dhanka Soomaaliya iyo raaqida haatan ka soconaya arrimahan waxay muujinayaan markaasi in xaaladdu ay si xumaan karayso marmar ka sii dambaysa iyo in dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaan dadka Soomaalida ahba dushooda ay ka cabsi qabaan in lagu dagaalamo maadaama laba wadan oo waaweyn oo kamid ah wadamada ugu weyn qaaradda Afrika halkaasi la isugu keenayo isla markaana aan is arki karin dhinaca kale wararka helayna waxay sheegayaan markaasi in taliyaha ciidanka militariga ee dalka Itoobiya uu gaari doono Somaliland isla markaana uu halkaasi uu kulamo kula soo qaadan doono madax kala duwan oo reer Somaliland Somaliland waxa la ogyahay markaasi ciidamo fara badan oo ciidamadii ugu badnaa ee Somaliland dibadda loogu soo tababaray inay ku sugan yihiin dalka Itoobiya halkaasina tababar ay ku qaadanayaan waxa sidoo kale la ogyahay in Somaliland iyo Itoobiya bariyaha markaasi ayna si toos ah markaa isku arkin ama wufuud ka kala socota inay isku arkin wixii ka dambeeyay markaasi wadahadalkii Soomaaliya iyo Itoobiya markaasi ugu soo gabagaboobay wadanka Turkiga ee soo markaasi fashilmay waxa haatan tilmaamay markaasi in taliyaha ciidanka militariga dalka Itoobiya arrimahaasi uu isku soo xiri doono walow ayna shaqadiisa ahayn haddana dhanka ciidanka ayaa inta badan markaasi ay ka kaashan doonaan Somaliland iyo Itoobiya waana dhaqaaqii ugu horeeyay Somaliland iyo Itoobiya laga arkay heshiiskii kadib dhaqaaqa ugu weyn ee Somaliland iyo Itoobiya laga arkay waxa uu ahaa markaasi dhanka ciidamada oo ciidan booliis ah oo markaasi tababar ku qaadanaya Somaliland markaasi ay tababar markaasi siinayso dalka Itoobiya iyo sidoo kale ciidamo militari ah oo iyaguna loo tababaray ilaa iyo haatan Somaliland dhaqaaqadaas ayaa la sameeyay markaasi labada wadan tan iyo markii ay heshiiska kala saxiixdeen isku soo duuba haddaba waxa ay guud ahaanba arrimahan kala duwan iyo xiisadan markaasi kordhaysay ee gobolka ka taagan ay muujinaysaa in xaalku markasta uu cirka isku soo shareeri karayo dhinaca kale tallaabo kale oo markaa ay dawladda Itoobiya qaaday oo ah in safiirkeedii u joogay magaalada Muqdisho Mukhtaar Maxamed Waare inay markaasi u dirtay dhanka dalka Algeria halkaas oo saacadii ugu dambeeyay markaasi laga aqbalay waraaqihii aqoonsiga arrinkan waxa uu muujinayaa in guud ahaan markaasi dawladda Itoobiya aynan xilligan wax rajac ka qabin in dib markaasi loogu celiyo safiirkaasi magaalada Muqdisho xitaa hadii la bedelayo in markaasi la kala bedelo ay ahayd dhanka markaasi diblomaasiyadda marka la eego balse dawladda Itoobiya waxa ay muujisay in xaaladdu ay tahay mid aanan guud ahaanba la isku soo noqon doonin si toos ah loo kala guuray waxa wararku ay tilmaamayaan in dawladda markaasi Itoobiya markii hore ay rajo qabtay inkastoo rajadu ayna badnayn haddana rajo ay qabtay ka hor intaanay dawladda Soomaaliya heshiis difaac la soo galin wadanka Masar arrinkaas ayaa la tilmaamay markaasi inuu yahay mid guud ahaanba meesha ka saaray rajadii la qabay ee ahayd in wada hadalada lagu guuleysto oo sida xogaha markaasi aan helayno ay sheegayaan haddaba dhaqaaqyadan militari ee soconaya iyo sidoo kale guud ahaanba xaaladaha kala duwan ee geeska Afrika markaasi xilligan ka soconaya ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa u muuqda inay halis gelin karayaan ammaanka guud ahaanba markaasi geeska markii hore iska wareersana ee Afrika dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh ku ansixiyay in ciidanka ATMIS ee Soomaaliya sii joogaan waqti dheeraad ah golaha ayaa meel mariyay qaraarkan oo ogolaanaya in dalalka xubnaha ka ah markaasi midowga Afrika ay sii wadaan fulinta hawlaha markaasi loo igmaday ee hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS ilaa iyo 11 December bayaan ka soo baxay markaasi golaha ayaa lagu sheegay in safiirka Soomaaliya Abukar Daahir Cusmaan oo hadlay kadib codeynta uu sheegay in Soomaaliya ay fahamsan tahay sida ay markaasi laga maarmaanka u tahay in la kordhiyo qaraarka ATMIS ilaa iyo markaasi bisha December isla markaana kadib marka laga wada fadhiisan doono oo laga wada hadli doono akhirta sharafta leh hawada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo